waxay ahayd 12 duhurnimo maalin axad ah kadib markii aan ku booqday xaafadda ay ku nooshay Nimco taasi oo ay ku sugnaayeen afar haween ah oo kamida asxaabta ay saaxiibka yihiin waxaanay fadhiyeen mid kamida maqsinada gurigaasi ugu horeyntii marka Nimco soo galay halka ay fadhiday dhanka midig waxa ka yaalay 8 xabo halka dhanka bidix ay ka taalay falaas shaaha waxaan ugu horeyntii Nimco weydiiyay isla markaasina si caadi ah aan kala sheekaystay waxa ku kalifay ama siyaabaha ku kalifay cunitaanka waxaanay sheegtay in la iskaga baabiyo dhibaatooyinka qofka qabsada iyo waliba marxaladaha uu ku sugan yahay xilligaasi kaasi oo sheegtay inuu ilowsiinayo waxay u kalifay hooyo shaqaale haysata baanahay ku noolna magaalada Burco Togdheer ku nool baanahay walaalo nasiibka ayaa in badan marka walaalo mushkilad iyo dib baa walaalo igu kalifay dabeetana walaalo qaadka waan cunaa hooyo dhaqaale haysatana maaha asxaab baan leeyahay dad badan baan leeyahay qaar way heli karaan inay iyagu dhaqaalahooda amba family amba dad ku tiirsan yihiin laakiin anigu marna waan helaa marna waan waayaa ma fahanti dadka qaadka cunaana kamid ah waxaad sheegtay inaad tahay hooyo carruur yar haysata maalin hesha maalin la weyda bal maxaa ku kalifay inaad cunto qaadka waxay igu kalifay inaan cuno dhibaatooyin badan oo aniga family iyo xagga nasiibka iga soo gaaray markaas qaadka siyaabahaasaan ku bartay qaadkuna dhib iyo dheef buu leeyahay anigu saacadaha qaar waxa baan idhaahdaa adduunka waa problem ma jiro inuu wasiiriyo inuu kursiga saaraba iga dhiga saacadaha qaarna dhibaatooyinkiisa anigu waan dareemaa waa tahay hadda waxaad ii sheegtay inaad carruur leedahay miya lagu qabaa wali oo ninkaaga u jooga maya ciidima qabtay walaalo waan ciidima qabtay ma ninkaygii waan kala tagnay rag badan baan kala tagnay laakiin khaasatan hanta qaadkaas un baan iga qaba duruufta ugu weyn ee ragga ku kala tagtaan maxaa ugu badnaan maqaadka maxay yihiin bal noo sheeg markii uu guursaday anigoo laba dhala ayaan qaadka bartay dabeetana wuxuu igu qaadka waxay bartay islaan iga soo horjeeda iyo jirtay dabka ayshid badeecadaan u babin jiray dabeetana kulba qoriyar bay dhiibi jirtay badeecada dabeetana ninkii adigu i dareemay waxaan ku wada waxba ma dhadhamiyo maalin walba waxaan bixi jiray weegii mar haddana waxaan bixi jiray weegii 2 jeer haddana weegii 3 jeer ala kulli xal maalinta dambe guri sida la wada fadhiyo ayuu dafiigu soo rag iyo dumarba fadhiyo dabeetana bartii ayuu dalaaqdeydii ku yeedhiyay ma fahanti ubadkiina way iga qaato dabeetana waan u ashkatooday ubadkii waa liisada tan xurbi laan ku haysato tataaxan si ubadkaaga yar waxaaga yar iska hayso marka waba la igu fay walaalada qaad dib iyo dhibaato badan buu wallahi saacada qaar uu idajiya saacada qaar wadnuhu xanuujiya anigoo cunayo habiyo wasiir gabigayguba iska dhigaya hadii wax darab lay sheego aba wax dhibaa lay sheego wadnaha ay xanuuna maskaxda ay xanuunta saacada qaar waba ma tagaaba deefanti hurdala aan badan neerfaha iyo madaxa ku xanuuna naftaadii jirkaaga bedelma wallahi qaadka dhibtiisa iyo dheeftiisu way isleegiin inkastoo waxyaalaha imka ganacsiga ugu weyna laakiin waxa ugu fiican qofka qaadka ha cune lacag soo saara marka waxaan leenahay hay'adaha dadka qayladii buu eega may faanti oo wax tara oo caawiya oo sibnaar u sameeyo de xusa oo sameeyo waxa la wixii muqayyiriinay wixii hooyo iyo dad dhibaataysan iyo shakhsiyan aniguba oo urur sameeya waxaad tiri qaadka dib iyo dheef uu leeyahay maxaa kamida dheefta uu leeyahay dibta garanaya dheefta wuxuu leeyahay qofka imaka qayila ee isagoo kala iibiya waxyaalo badan baa ka soo galayo ubadkiisu ku waxaysanaya noloshiisu ku waxaysanaya laakiin qofku haduu qaado inuu meel uu iska fadhiyo biil ilaahi mooyana biil kala laanu maqlin waa dibtiiso sidoo maalinba timaan yar gooyay dadka shubaya ma fahanti marka si sabaqaadka haduu xitaa qofku cunaya amal baa u fiican ana waa tahay balqaadka waxaad noo sheegtaa inta nooc lagu cuno ee ay isticmaashaan walaalo waxay isticmaalaan qaadka la dhaafay 7-1ka in aftiin la keeno dadarta la yiraahdo iyo qaadka la yiraahdo ina soofe iyo qaad la yiraahdo faraska iyo qaad la yiraahdo jabiska inta soo lagu isticmaalo laakiin qaadka magaciisa aad bay balaaran yaa koobi karaan adigu keebad cunta markaa walaalo nooc iga soo horbaxa Soomaaliya maadaama baan lacag kiishadeeda ku haysanin aan iska shoomeerahay kii alla kiiga soo horbaxa walaalo cuna ma fahanti marka qaarna ma bay helaba waa tahay maalin kasta miyaad cuntaa mise maalmaha qaar baa aan laba helinba maya walaalo maalin kasta ma baan daayeen hadaan helayo laakiin maraan daayilay wiig isugu bixiyo midaan bil habeen iyo maalin toona seexan way jiraan ma fahanti laakiin marmar aan saaw dhaco qaadiray rida mooyaan xitaa bahalkan si buu fidmaysay xitaa dad lacag haysan si kugu soo galan la waaymayo waa geed iska
ما يفهمتي marka waa nooca walaalo hadaan weydid kala haba ka hadaan weyna kala haba naga kululaada waa tahay qaadka bal qiimihiisa uu kala leeyahay noo sheeg marka jabiska oo kale rubiciisa $7 baa la siiyaa dadarta oo kale 8,000 baa la siiyaa soofaha 8,000 baa la siiyaa ma fahanti hargeysu laakiin bahalku ku noociyo badan yahay hargeysu ku noociyo badan yahay laakiin waa noocyadaas oo kale ونوعيداas oo kale qaadku maraan weydiiyay nimco inay leeyihiin goob ay haweenku isugu yimaadaan ayaa waxay sheegtay inay jiraan guryaha asxaabtu ay leedahay isla markaasina ay telefoon ku wada xiriiraan kuwaasi oo isugu yimaada gurigaasi waxaanay halkaasi fadhiistaan asxaabta oo gaaraysa ilaa 10 qiyaas ahaan ama 8 waana tan nimco iyadoo arintaasi ka hadlaysa wadacaysa ha way jirtaa madax xanuun badan baa yeeshaa nervous baan noqdaa adduunka oo dhan baa igu soo koobma ما يفهمتي لكن قاد كاتاركو وان فرحة أو مشكلة دوران لكن واحد جرت مرة قف هنكي سبه هذا ده يكون صور رئيس قادك هنكي سبه يا صارت يدو مركيو هواينك وما فينا وأنا كلا دردار ما يهبلها يري مك وحبرنا عيا صوك عيا يبلود ضد جبت بلود عيا بريان وحلاي هاي أو يارنكي نوع هوج كتشوك بالله هاي بحال كان ينكو بيدي برنو ديده نina waa ta ayadaniga ka soo agtoosin waxa jirta in dadka qaar ay sheegeen in qof walba wax gaar ah uu soo qaadka marka cunaan aan adigu bal kuwaas ma ku jirtaa waxa kamid ah waxyaabaha ku soo raanahay aniga xagga shaqadu ii diraa marka kale firma riixi karo meel baan saa isu laabano ciyaalku taysayeen hadana caadaasan ku haya bahalka markan cunay saacadaha dambe ay tahayna guri masax dhar mayd wax walba mayd saas qoraxda salaada subax igu soo baxda saacada subax baa igu soo baxda marka bahalku firfircooni bi galiyaaniga dadka qaar sidoo liitinimo waxaan leenahay dadka dib ha loo eego wacyo galiin oo hay'ad ha loo sameeyo hay'ad ay leeyihiin ha loo sameeyaan leenahay adiga hadii lagu oranayo iska daa ma iska deyn kar laha waan iska deyn kar laha haddaan dhaqaale helo Soomaaliya ka dhadee waan iska deyn kar laha aniga dadka wali niyadoodu dhimatay ma fahanti laakiin waxa ugu kalifay horta bahalkan wuxuu leeyahay albaab laga galay albaab laga baxo hay'adde si looga baxa way yarta ma fahanti wuxuu leeyahay junuudihiisa ku haf inta ku qabsadaan bay kula boodayeen laakiin waan ku rajo weynahay hadii aan helo dadka niyada u dhiso dadka dadka moralkoodii soo celiyo sibinaar oo shaqo abuur loo sameeyo way dhici kartaa 100% way dhici kartaa in iska day laakiin 100% ma dhici karto